If you make a mistake today, tomorrow you'll be okay. Listen and pay news like peaceful service. You can know several things about what is going on Africa. For Ina, she's studying here. She's going to express her own idea. You know, what shall I say? I'm going to recommend, for example, all the Somali students, girls and the boys together. The moment, for example, they graduate, for example, the high schools, to join us, to share this happiness with us, to join this, for example, cheerfulness with us, and to share the happy life that we're just leading, for example, here in Somali State University. runtii jaamacaddan waxay burburtay anoo dhalan waxay burburtay 91kii anigana waxaan dhashay 93kii waxa ay burburtay anoo 2 sano dabcan waxa weeyaan markaan dhashay 2 sano ka hor ayay burburtay sida aan historyga waxa weeyaan ama geographically aan u haynana jaamacadda ummadda waxay ahayd jaamacad Soomaaliyeed waxaana wax ka baran jirtay 15,000 oo arday Soomaaliyeed isla markaana si lacag la'aan wax uga baran jiray marka anoo waxa weeyaan xilligii anoo dhalan bay burburtay inaan maanta nasiib i helo ana waxa weeyaan waqtigan inaan hadana ku soo biiro ay dib agaheed ugu istaagto aad iyo aad aan ugu faraxsanahay dareenkayguna ma mid soo koobi karo ru'aantiina waxaan jeclahay inaan dareenkayga farxad la wadaago ummadda Soomaaliyeed oo ku dhaqanad over the world. The government creates what's called the equal opportunity because when there is a private education, a lot of young people are not accessible because of the economic situation. But this government realized that it is the duty of the government that the government has to give the Somali young people equal opportunity. That's why the force of the government was put behind the realization and the reinstatement of this university. To their brothers outside, to other, for example, what shall I say, the ladies. والله مركو ورس قبلها Soomaaliyeed ay dhigaysanayeen markuu waras aan u mahadcelinayaa markii xigta waxaan ku boorinayaa alle yahay inay wax bartaan ee kacaan ee fadhiga ka kacaan ee wax bartaan inuu noqdaan kuwa bari dalka aan ficil lahayd dalka maadaama ragina ay daafacayaan wadanka dalkana ay leeyihiin ma insha Allah inaan ka yaraanin inaan ka liidin ragii gabdhahan isku meel maraan insha Allah taasaan rajeynaya taasaan ku boorinayaa inay wax bartaan ee kacaan hooyooyinka waxaan ku boorinayaa gabdhaha guriga ku haysta inay dhahaan gabdhaha soo daayaan si wax u bartaan wadanka wax u bartaan wadanka wax ugu qabtaan